dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf ayaa magaalada Caynaba ku qabatay kulan ay ugu magac dartay isdhexgalka iskaashatooyinka iyo golaha deegaanka. kulankan oo ujeedkiisu ahaa sidii wada jaan qaadi lahaayeen isla markaasina u wada shaqayn lahaayeen golaha deegaanka cusub ee degmada Caynaba la soo doortay iyo iskaashatooyinka ganacsatada ee gobolka Saraar ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Saraar. waxaana ugu horreyn halkaas ka hadashay Mrs. Iimaan Maxamed Cumar oo ka socotay dalada Sonsaf. waa kale waxaad isweydiinaysan maanta ujeedada halkan loo iskugu yimid waxa weeyaan sidii golaha deegaanka iyo ganacsatada ay u wada shaqayn lahaayeen. marka barnaamij dood wadaagana furi doonaa, xog badan baan isweydiin doonaa, waxyaabaha tabanaysan baad ka hadli doontaan, waxaas oo dhan baad isweydiin doontaan. annagu waxaan ka soconaa howlwadeenada Sonsaf baan nahay. Sonsaf waa dalad guud oo ururo badan ku midoobeen, ururada culimadiinka iyo dhaqanka, ururada jaamacadaha iyo ururada maxalliga ah ee civil society-ga ah ayaa ku wada jira. waxyaabaha badan aan ka shaqaynayna waxa weeyaan isdhexgalka bulshada, adkeynta nabadgelyada iyo in dalka u qabsanto doorasho xor oo xalaal ah si ay uga noqdaan iyaguna kor joogeyn cidii khaldan iyo cidii saxsanna mar walbana ku sugaan saxsanidooda iyo halka ay marayaan. kulankan oo intii uu socday ay bulshadii ka soo qayb gashay su'aalo ku weydiiyeen xubnaha golaha deegaanka ee madasha fadhiyay ayaa mas'uuliyiintuna si hufan uga jawaabeen su'aalahaasi. golaha deegaanka maxaad ka rajaynaysaan caqabaduuse waa maxay? labadaas su'aalood baan malaynayaa maanta taagan yihiin. haddaan taa maxaad ka rajaynaysaan waxa weeye nin kasta wixii uu yidhi baa lagula xisaabtamayaa. waxa ugu muhiimsan ee dowladda hoose loo doortay waxa weeye inay adeega baahiyaha aasaasiga ee degmada wax ka qabtaan. magaaladeenna waxay ku jirtaa meelaha ugu liita dhinaca baahiyaha aasaasiga ah. waayo dadkeenni biyo macaan ma haystaan. biyaha magaalada ku jira waa qaraadh. qodobka labaad ee laydinka baahan yahay waa caafimaadkii. isagana dhakhtarkeennii imika inuu xidhmo u dhow yahay. dhakhtarkii TB-du oo totally isaguna wuu dumayba. xanaanooyinkii xanaanada wadaamago, xanaanada oog, iyaguna waa dhinac waa sii saqiirayaan. horta howlo badan baa idii taalla. waxaa kaloo iyadana iskuulaadkii oo aan dowladda hoose gacanta ku haynin. muhiimadda ugu weyn ee dowladda hoose inay gacanta ku qabato waxa weeye waxbarashada iyo caafimaadka. iskuulaadka dugsiyada hoose dhexe gobolka ku yaala intaynaan gobolkaba gaadhin degmada dowladda hoose ma maamusho, gacanta kuma hayso. iyagana dee magaalooyinkeena la midka ah ee Berbera iyo Hargeysa iyo Gabiley iyo Burcaba dowladda hoose gacanta ku haysa. inaguna iyagun bay la midnahay mar kasta aynu lahaanee dee qorshaha inaad ku darsataan si aad ula soo wareegi lahaydeen waxbarashada aasaasiga iyo caafimaadka aasaasiga labadaba baa laydinka baahan yahay. adigoo rag dhalinyarada aqoon-yahana inaad tihiin baa laydinka baahan yahay. taasina waa muhiim. waxaan kaloo idinka mahadcelinayaa inaad wadooyinkii isku xanibnaa shaqo fiican ka qabateen, qaab cusubna dhisteen. intaana waa idinka mahadcelinaynaa. laakiin weli wax badan baa idin qabiyaahoo dhinacii baahiyaha asaasiga ah. mid kalena aan idinku daree xubnaha golaha deegaanku ma aha xarunta dowladda hoose kama shaqeeyaan. xarunta dowladda hoose kama shaqeeyaan. maayir ku-xigeenka iyo xogayaha fulinta ayaa dowladda hoose ka shaqeeya. inta kale waxay ka yihiin un markaa sidaynu sharciga number 23 ku qoran wax mushaara ma laha. haddaanu maqalno meelaha ka maqalno qolii dowladda hoose kabkii isku yeerinaya iyo qolii dowladda hoose lacag isku yeerinaya iyo dee waxaanu idin akhrisanaynaa xaalkiinaan akhrisanaynaa. horta waxay ogaataan haddaydaan ogeynaadna ogaataan inaan dowladaha hoose iyo maayir marka saddexdaa fulinta laga reebo inaan wax mushaara lahayn. that means waxa weeye meesha shaqo kuma taala haddaan mushaar ku lahayn. anigu hadhoolkan haddaanan dee ka shaqaynayno mushaar ku lahayn dee ma imanayo. maalinta laga yidhaha training baa ka jira un baan imanaya. markaa horta taana dee ku baraarugsanaada inaa wixii talo iyo tusaalaha ku saaxiibadin ku caawisaan mooyaane inaan idii dooranay un in markaa 3 biloodba mar wixii aad noo kordhinaysaan ay isugu timaadaan. muhiimadda kalena waxa weeye marka traininnadan oo kale doodahan oo kale imanaysaan dee waxay ahayd kolley inaad rag waxa soo kaxaysateen kolley rag maydaan u yeedhan badan baan maranaya hablo badan waa idin arkaynaa se ya waa intaad doorateen. muhiimadda waxa weeye imika waxqabadka u badan waxaa ka mid ah hiblooyaasha waa u badan inta meesha fadhida iyo qudradleydii. simbal markaynu eegno islaamuhu halkay ku ganacsanayaan dushooda waxa dhagax saaran. markaad ag marto you can't image wallahi aad bay u dhib badan tahay. simbal waxay u dhimantahay inta ama islaamu inay qof soo kaxaystaan oo konta kun siiyaan uu ka soo xaadho ama dowladda qof dirto ka soo xaadho. waa simbal isaad waa intaas bay u baahan tahay. intaana inaa bal maanta ama berri toole inaa qorshaha ku dartaan inta inaan fuulo uu soo xaadho. waayo haddii culayskaasi ku sii bato meeshii inay duntaa bay khadka u yeelanaysaa. waxaa kaloo iyadana jirta
ويلاد ميل هيلب كله يبيو لكن إنا قرشة كده ستان ميل خضرة اللي يبيو خضرة أو جارة إنا بالبلالة الثمية وين أو تشين قال قصة الدولة ده سنة ده كبا كسو قال لي عشورتي سيدا أي وقصة قادان سيدليا هيربلياشة أي أنا سيدليا وقصة قادان يعني يدنا إيريا إنا قرشة كده ستان إن ميل خضرة ده وجارة الثمية يدنا عانا إيو بين مجالات إنه عان كنا هيو iyo xoolaha nool marka waxa weeyadana in loo sameeyo meel caana lagu iibiyana gaar ah qorshaha ku darsataan taa waxa ka sii muhiimsan in sayladda xoolaha dawladda oo sameeyay priority-ga lacagta ay ka shaqo kamid ah dawladda hoose sayladda xoolaha sayladda qofka reer miyiga ay yimaada meel uu harsada ma leh taas waa qodob kamid ah qodob muhiim ah in ayadana meel balbaad saalaan kale 2003 2004 2002 markaan dib ugu noqono aynabi waxay lahayd saylad balbalooyin ka dhisan yihiin taangi biyaha yaaliin 2021 kiina male meel qof ku harsado taasina waxa ka mid tahay marka meelaheena marka la eegayo assessment la qaadayo ceebtaynugu ah waxa kale iyadana qorshaha ku darsataan oo iyadana muhiim ah qashinka magaalada ka qaadaan haddii imka cidii timaado tira xaddiga qashinka ay qaadaan waa imisa iyadana waxa muhiim in garan kartaan imsa tan imsa dawladdu way martaan iska rogadu way qaadaa laakiin ma xisaabsan laakiin ina xisaabsan inta tan maalinka ay qaado waxa kale iyadana jira magaaladana waxa baabiyay oo istaraadadana baabiyay qashinku wuxuu kala baxaa laba mid qoyan iyo mid qalalan in waxa istaraadadana iyo laamigeena baabiyay waxa kamid ah qashinka xafladda tan hay'adda soosaf golaha deegaanka oo maayarku ugu horeeyo maayar ku-xigeenka iyo xubnaha golaha deegaanka aad baan u salaamayaa iyo ka soo qaybgalayaasha iyo bulshada kale iyaguna haweenweynaha dhammaantood waan salaamayaa dee waxaa la yidhi anagu nimanka kan dee kolley hawl badan baa naga gaadhay waxaanu ku soo doorannay hawl badan kharash badan socod badan baa naga galay muddada imika ay shaqaynayeenna waa 3 bilood runtii wax badan baanu dee anugu ka filanaynaa ujeeddadii aanu dee inay magaalada horumariyaan inay dadka wax u qabtaan waa waxaanu u soo dooranay marka maxaan sheegayay haddeer kolley eed kula soo degdegi mayno cashuuraha iyo waxaa laga sheekeynaya kolley anigu waxba maan cashuuranoo wallaahi ma garanayo dee kolley dukaamo lay baan iska nahayo dukaamo yaryar baanu leenahayo cashuuraha dee caadiga awalba nala ka qaadi jiray ee xashiishka iyo waxaa lagu ururiya iska caadigaana si fiican baanu dee isaga bixinaan waa naga qaadaan dhulna maan cashuuran anigu oo imika haddeer cashuurta iyo halkaa wax ku saayida iyo wax aan naga ka dhima haddeer anigu kama jawaabi karo marka kolley annaga haddeer weli xiisaan u qabna waano tareenkana si wacan bay imika u dhaqaajiyeen oo magaalada si fiican bay haddeer howlqabadkooda ay u dhaqaajiyeen si wacan bay u wadaan waxaan leenahay halkaa ka sii kordhiya ka waxa weeye halkan dawladda hoose horta wax qabad badan bay samaysay intii muddadii yaraday joogtay wax qabad badan baa ka muuqda ama wadooyin ha ahaato ama maxaan ku idhaahdaa wacyigelin ha ahaato ama maxaan ku idhaahdaa dee shaqada iminka ay hayso ha ahaatee horta si wanaagsan baa u shaqaynaysaan dhaliilaanu haddeer idin dhaliilaynaana ma jirto waxa weeye dee dadkii deganaa maxaan ku dhahay wadooyinka wax ka fujiye la waayey waa idinkaa maanta maxaan ku dhahay dee wada fujiye maxaan ku dhahay dariiqyadii reeraha haamaha qaar baa si dalka loo soo galay reere kale u dhiibta oo aan maxaan ku dhahay meel booyad u soo martiyo meel gaadhi u soo mariyo meel mayd u soo mariyo meel umul lagula cararayo dhakhtar maxaan ku dhahay u soo maro aan balahayn oo intaa maxaan ku dhahay laga cabsoonayo la lahaa haddaa halkaa gashaan ama shiid ama dhagax ama balaayo idinkala kulmasa idinka qudhiina caqabado waaweyn way idinkala kulmeen haddeer waxa weeye taa horta ha ka biqina sii wada baanu idin leenahay meel alla meeshii waddo tii xoolaad iyo tii dadweyne iyo tii maxaan ku dhaadayay maxaan ku leeyahay la furi karaba fura oo dadkan dee waddadu waa u dan meeshaad wax ka dhisan lahayd adoo iminka baloodh leh baloodhkii berkad meel aad ka dhisato iyo suuli meel aad ka dhisato midna ma leh waxa weeye baloodhkaagu waa inuu kuu qiyaasnaado oo qofkii baloodhkiisii waa inuu u qiyaasnaadaa oo meeshu wax ka dhisan lahaa u qiyaasnaadaa laakiin se haddaad maxaan ku dhahay suuligiina bartamaha ka qorto berkadiina wajahada ka qodo dee halkaa khalad weyn baa ka imanaya labada su'aalood oo hore waxay ka tahay in la weydiiyay in kale ma garanayo maamulka dawladda hoose waxaan weydiin lahaa xiro dhiigtii ariga lagu qali jiray
dowladda hoose ayaa gacanta ku haysa runtii meeshaasi meel fiican bay ahayd magaaladii afarta dhinacba way u dhaaftay barakacyaashii baa dhaafay suuqii caadiga baa dhaafay masaajidadii baa dhaafay suuqii bay dhex taallaa maamulka dowladda hoose waxaan weydiinayaa maxaa idinka qorshaysan halkaa oo caafimaadkeeduna aada serious u yahay su-aasha labaad aan weydiinayaa waxaa weeyaan maamulka waxaa jira dadyow fara badan kolley waa maamul shaqeynaya oo si fiican u shaqeynaya waxaa jira dadyow fara badan oo dhul fara badan iska leh wax cashuurana aanu haysan isaga oodan yihiin waxaa kale oo jiro taa dhinaceeda dad aan dhulba haysan arrintaas muddo way jirtay dad badanna weeyaanoo dhul fara badan iska haysta wax cashuurana aan ahayn arrintaana waxaan weydiinayaa maxaa idinka qorshaysan dowladda hoose qodobka saddexaad aan soo jeedinaya waxaa weeyaan adduunyada waxaa lagu horumaray iskaa wax u qabso meel dowlad keliya wax ka qabataa ma jirto meel shacab keliya wax ka qabtaana ma jiraan magaaladeennuna runtii aad iyo aad bay ugu liidataa intaan ka warhayo iskaa wax u qabsada oo haddii iskaa wax u qabso la gelayo dee contribution yaroo hal dollar oo la ururiyabaa magaaladeennaba wax kale ka dhigi lahaa aad iyo aad baan u boorinayaa in iskaa wax u qabso magaalada lagu bilaabo waxaan kaloo aan usoo jeedinayaa maxaan idhaahdayey inay isku xidhka bulshada iyaga iyo bulshada ka dhexaysa inay kordhiyaan maanta odhan mayno waxaa nooma idin qaban odhanna mayno waxaasaad noo qabateen laakiin dadaal dheer baa idin yaalla annagana dadaal dheer baa noo yaalla dadaalka dheer ee idinka idin yaalla waxaa weeye inaad wax badan iyo wixii aad noo ballan qaadeen ee aad fagaarayaasha noogaga qudbayn jirteen inaad hirgelisaan annagana waxaa noo yaallo oo naga go-an inaan wada shaqayn fiicanna aanu idin siino taageerid wanaagsanna aanu idin siino cashuurtana aanu iska bixino taas oo maadsan tahay hay'adda Sonsaaf Allahu musta'an kulli barnaamijkan waa barnaamij fiican ay Sonsaaf inoo keentay maanta ama ay daadiinayso Sonsaaf waxaan leeyahay waad ku maadsan tahay anoo ku hadlayaa afka ganacsatada kulli xagga maamulka wada shaqayn dhow baa naga dhaxayso Sonsaaf aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa barnaamijka keenteen laakiin waxaan ku jeclaan lahay haddaan nahay ganacsatada dee muddo sanada ka bacdi inaad dowladdaasoo kale noo qabataano dee damtaasaanu ka saari lahayno waxaan leeyahay waxaa meedaan qaban oo waxaa meedaan qaban markaa maamulku wuu cusub yahay oo dee muddo 3 bilood u jooga markaa maanta waxba la dhici mayno imikana nidaamka si fiican bay u wadaan maamul daajinta hadday tahay wadooyin hadday tahay bilicdii magaalada hadday tahay markaa horta maanta meel aanu ka dhaliilno haddaan nahay ganacsatadii ma joogno aad iyo aadna u baahsanyiin maamulku nahay waxyaabaha aan ugu kordhinayno waxqabadkooda waxaa ka mid ah inay maxay ahayd tooleeyeen suuqa ganacsatada qaybta hilibka iyo qudradda iyo waxyaabaha ay kordhiyaan hangarka si qudradda iyo hiliblayda maxay talay xaafadaha wax ku qasha qudradaha dukaamada yar lagu iibinayo dhammaan halka looga soo wada adeegto qaybo kale oo bulshada ah oo maxay ahayd tooleeyeen u baahan inay de ganacsadaan ama maxay talay ay waxeelaan ay ka ganacsadaan iyagana oo ay ka caawiso suuqaasi waxyaabo badan iyo wajiyo kale oo badan uu furayo haddii suuqa la weyneeyo horta waxaan idin ballan qaadaynaa maanta hor fadhino in wax kasta daalacan doontaan ugu yaraan xitaa wax qorshayaasha aan fulinayno aan u samayn doono board dowladda hoose horteeda ku yaala oo ta akhrisan doontaan hataa hadday miisaaniyadda tahay hadday waxqabadada tahay hadday qorshayaasha la fulinayo tahay oo hadhow intaad timaadaan oran doontaan qorshihii noocaas ahaa bishaa ahaa maxaa lagu fuliyey miyuu qabsoomay mise waa la musuqmaasuqay ayaan horta idin ballan qaadaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dalladda Sonsaaf oo runtii arrintan noo bilowday waxaan jecelahay ardayda jaamacadaha inaan sidoo kale samayn doono mar kale oo aan anagu istii soo aabuli doono kulamo runtii aanu ku doodi doono maamulka intaan soo casuuno anagoo shaqaaleeya intaan maamulka u yeedhno bulshadana u yeedhno sidoo kale aynu danteena uga wada doodno sidaa darteed waxaad tidhaahdeen su-aashii ahayd sidaa loo horumarin karaa bulshada reer Caynaba horta waa su-aal daaweyn adduunka horumaray ee qaramada waxa weeye horumaray ilaa hadda way ku jiraan su-aasha ma aha waxaynu halkan ku xallin karano laakiin maxaa loo baahan yahay qof kasta halku taagan yahay inuu horta daacad ku ahaado oo bartiisa mas'uuliyad iska saaro oo qofka qashinka qubaya ka waxa weeye ilmaha yar ee shiidiya sariibada waxa weeye ka wadada ku shubaya waxaan fiicnayn inuu qof walba halkiisa ka ahaado istaanbi astari ka ahaado
aad baad horta mahadsantihiin dhiirigelin bay intaas ila ahayd qorshayaashii iyo wixii noo qorshaysana maamulkaa ka hadlay haddii aanu nahay golaha deegaanka ee cusub dadweynaha gobolka Saraar waxaanu u sheegaynaa inaanu awoodayada itaalkayaga nooc kasta oo ay tahay oo horumarin u baahan oo isbedel u baahan inaanu isbedel muuqda oo cad oo tusoo taabsiya aanu gobolka oo ay ugu horeyso degmada Caynaba oo ah caasimadda gobolka aanu ka qabanay insha Allah taala qodobada aan noo soo jeediseen laba qaybood bay u kala saabsanayeen qayb waxay ahayd tilmaamid waxyaalaha annagana noo muuqday idinkana idin muuqday ee baahiyaha ee jiray inaanu wax ka qabanno kuna darsanno qorshahayaga qaybna waxay ahayd waxyaalaha baahiyaadka weyn loo qabay ee aad tilmaanteen in la yaro taabtay oo wax laga qabtay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadkii sida wanaagsan fakarka u soo dhiibtay ee waxa weeye arrinka falanqeeyey kulamada noocan oo kale ahi waxay suurto gelinayaan in wada shaqaynta bulshada iyo ganacsatada iyo dadka degmada waxa weeye iyo gobolka Saraar ku nool haddii sidan oo kale kulamo loogu sameeyo maanta hay'adani ay nagu sameysay ururkan soo soo inaynu dhexdeena ka faa'iideysano inaynu mar walba istoosino inta markan ku soo dhaafo warbixinta guud waxaan ku darayaa annagu haddaanu nahay dowladda hoose degmada Caynaba saddexdan bilood ee iminka aanu joognay qorshayaasha aanu fulinay waxaa ka mid ah inaanu sameynay survey sida bulshadu uga qirayso waddo bannayna waddooyin muddo sano 30 sano 40 sano waddo gaadhaysa xidhan survey ballaaran inaanu sameynay qaybo noo fuleen qaybana noo harsan yihiin insha Allah aanu sii wadi doono sida xaafadahaas oo kale xidhan inaanu haddii Ilaahay ka dhigo aanu waxa weeye iyadana ku sii daro su'aalaha badanka xildhibaanada ka maayir ku xigeenka iyo xildhibaanka ka jawaabay waxa noo qorshaysan inaanu isku xidhanno bulshada dowladda hoose iyo bulshadu inay isku xidhmaan oo wada shaqayn joogto ah ka dhaxayso anigu waxaan ahay gudoomiyaha arrimaha bulshada waxaan diyaar u ahay bulshada degmada Caynaba annaga iyo xildhibaanada kale arrimaha bulshada u qaybsani in xiriir joogto ah inaga wada dhaxeeyo in toddobaadkii qofkii waxa weeye noo baahda xafiis gaar ah aanu leenahay hadduu cabasho wado hadduu warbixin wado mar walba aanu diyaar ugu ahaano waxaanu diyaar u nahay 24 saacadood wixii baahi ay noo soo gudbisaan inaanu xafiiskayga loogu timaadaan wax ka qabanno waxaanu diyaar u nahay inaanu bilicda magaalada oo dhirayntu ka kowtahay waxa weeye laydhintu ka kowtahay wada sabayntu ka kowtahay saylada xoolaha ee aad iyo aad ka muhiimka insha Allah iyadana aad iyo aad qorshaheedu waanu wadnaa waanu dareemaynaa xoolahaas inay bacad joogaan dadkaasi bacad joogaan waxaanu ku dadaalaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh saddexdan bilood ee soo socda inaanu insha Allah ku darasnay seelad xoolo nidaamkeedii qorshaheedii aanu keenno sida maayir ku xigeenku sheegay waxaan noo qorshaysan khayriyeed inaanu sameeyno maalinba tallaabo qaadno waxaanu idinka codsanaynaa haddaad tihiin dadka degmada Caynaba annagu keligayo ma shaqayn karayno haddii aanu wax walba qabanno haddii aanu dadaalo waxaanu ka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan inaad na taageertaan inaad na garab gashaan inaad waxa weeye nagu dhiirigelisaan inaanu wax badan oo aanu ka cabsanayno ama waxa weeye aanu dib u dhac nagaga jiro inaad idinku nagu horgashaan nagu dhiirigelisaan oo ay ka mid tahay taa iminka waxa weeye xaafadaha laga baqi jiray ama dee la odhan jiray haddii halkaa la sameeyo ama waddo laga sameeyo rabashiya waxbaa ka dhacaya waxaa noo suurto gelisay awood iyo xoog iyo farsamo annagu aanu leenahay maaha waa wacyigelin markii hore aanu sii bixinay oo dadka xaafadda iyo bulshada degan aanu markii hore qalbigooda ka sii dhaadhicinay in dantu aanay ku jirin in waddadu sidan ugu xidhnaato ay dantoodu ku jirto in waddadu insha Allah ay u furanto waxaa jiraya dad sarfaygu uu soo yaro galay oo marayo waxaanu iminka qorshaheedii samaynay in qofkii
waddadaasi marto dhul kale aanu siino dhulbedel ugu bedelo insha allah bishan ama waxa weeye waktigan aanu jaangoynay in qofkii meel laga barakiciyo waddadu martay uu helo dhul kale aada iyo aad baad u mahadsantihiin marka muhiimadda ay keliga lagu wada shaqayn karaya inuu yahay daacadnimada oo keliya daacadnimo haddii la helo wada shaqayna way imanaysaa iskaa wuxuu qabsadayna aada iyo aad bay ugu cantiyadu run ahaantii wax kasta oo ka hor yimaada hadday saldhigyo tahay hadday masaajida tahay hadday iskuulla tahay si hawl yar bay loo qaban karaa markiiba iskaa waxu qabsada waxaan qofkiina dhaqaalihiisa waxba yeelayn wax weyn ka jarayn xaggana ka muuqanaysa magaaladii bilic usoo jeedinaysa oo qaybo badan u keenaysa marka horta dee anagu waxaanu nahay xildhibaanadii lasoo doortay in badanna dadka waanu soo ballanqaad adaanu la kaftana imika intiina halkan joogta waxyaabo badan oo aanu soo ballanqaadna way jirtaa laakiin waxyaabihii imik hal mar lama wada qaban karo waxaanu sidii aan marka horeba idinku ballanqaadnay waxaanu idinka codsanaynaa inaad dee hadba wixii aan la qaban kara aanu qabanaynaa aada noo jaanistaano dee aydaan degdegin karaan marka hore waxa weeyaan aasaaska waxqabadka waxaa dhaqaale waxa wax lagu qabta horta waa dhaqaale haddaan dhaqaale la helin oo si kasta aynu u dadaalo waxa qabsooma wax yar bay noqonayaa markaan taa laga soo gudbo waxqabadka waxaa labeeya qorshe inaad lahaato waa inaad qorshe lahaataa qorshe insha allah waxa weeyaan waa waxaynu hadda isugu nimi ee dooda salka u ah waan taabtay markii hore waxba ku noqon maayo waxaan golaha deegaanka qorshihiisa sanadka 21-ka inta ka hadhay iyo 22-ka way qorshaysan yihiin warqadaha ku yaaliin waa la sii daayay waana lagu soconayaa haddii ilaahay idin ka dhigo sida ay u kala horeeyaan baan ugu socon doonaa bulshaduna runtii waxaan u mahad celinayaa hadalkii aan ku laabto ina cali runtii aan u mahad celinayaa wakiilda waxay ka tahay dhalinyarada aqoon-yahamiinta ee runtii u soo baxday degmadan iyo gobolkaba wax badanna way ku dhiirigeliyeen intii maaragtay dadkaasi ay ku soo biireen bulshada dib ugu soo noqdeen aqoontoodii wax badan baa la wada qabtay mashaariic badan oo ay hindiseen ayaa waxna hirgaleen waxna qabya yihiin sababta waxay tihi siiroo baanu lacagtooda la daba socon aan u maamulkii hore la shaqaynay tan wasiir du taagayo waa run oo waan qirayaa runtii arrintaasi inay arrin jirtay ahayd hadday yahay weli lacagtii waa la hayaana dee waa ku mahadsan yihiin ama isagii baynu ka samayn ama wax ka fiican ayaynu u bedeli doonaa laakiin sababta ugu weyn ee arrintaas dib u dhaca ku samaysay waxa weeye waxaynu nahay xoolo dhaqato maadaama aynu xoolo dhaqataynahay xoolu sari noo yihiin meelaha siirooyada laga samaynayo ceelkeennana xoolaha ka cabba meelaha siirooyada laga sameeyo waa meelaha santarka magaalada abay u badan yihiin oo ku qurux badan yihiin waddada ballaadh ka timaada ee ballaadhana ceelkana soo gashaa xoolaha inooga cabba xooluhuna dee waxay u baahan yihiin iyaguna xaqsiin bay u baahan yihiin waa wixii aynu ku noolayn siirooga halkaasaa ku fiicnayd haddana waxaa isqaban waayey war bilicda magaalada meesha ugu fiican inaynu siirooga ka dhigno iyo inaynu xoolaha u dayno oo jaanis u siino arrintaasaa caqabad noqotay runtii oo sii qaban weyday halkana waxaan u fadhinaa inaanu runtii wixii aad soo jeediseen inaanu ka jawaabno wixii suuragal ah inaanu kaga jawaabno ilaahay subxaanahu watacaala ana halkaa ha inooga sii wado howlaheenna waxaan ku horeynayaa inkastoo aanan dadka magacyadoodii qorin inantii weydiisay caruur badan baa jirta oo ka dhacday waxbarashada oo iskuullada ku jirta waxaan ka qayb galay 2 casho oo isku dhow ka qayb galay iskuulka la dhaho iskuulkan maxadka iyo iskuulka loo yaqaano ayaan shalayna ka qayb galo isagana waxaanu qiray wixii ka dowladda hoose ahaan arday baa jirta meelo aan ku habboonayn wax ku dhigata geed hoosta wax ku dhigataa jirta taana waxaanu runtii aan ka dowladda hoose ahaan ballan qaadayna wixii karaanka iyaga inaanu ka geysano
haddii la tahay caruur la gacan qabanayo kaamkeena jooga ay tahay wixii aanu karaankayaga marnaba shacabkayaga kama hakran doono waanu gelin doonaa haddii alla ka dhigo annagoo mar walba ku saleynaynaa awooddeena dowlad hoose ahaan qodobka labaad siirooga inantu tidhi waa la dhisayey lacagtiisana waa la hayey annagu ka dowlad hoose ahaan haddaan nahay golo deegaano cusub dee maanu ogeyn maantaad noo sheegtay jasaaka allahu alkhayr runtii waynu qorshayn doonaa haddaynu siirooyada waddooyinka inoo dhammaaday ku dari karro iyo haddaynu wax kale uga faa'iidaysan karnaba intaba waynu qorshaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo qorshihiisana waxaynu ku qorshayn doonaa miis dushii haddii alla ka dhigo mana noqon doonto sidii markii hore aad sheegtay inaad ku suuroobi weyday shaqo qaran tiimkeeda ay u suuroobi weyday inay wax qabtaan maanta insha allah biidni illaahi kariim waxaan isku daynaa inaanu suuro gelin haddii alla ka dhigo fikirkiinii ahaa inaad wax ku soo kordhisaan degmadiina waana iskiin barbartaagayna haddii alla ka dhigo waxaad sheegay danta guud iyo danta caamka in laga shaqeeyo golaha deegaanku uu u tababaran yahay isagoo runtii aan halkan xildhibaan golo deegaan aanu mushahar usoo doonan iyo inuu ka helo lacagu ka tabacdo usoo doonan anigu kolley waxaanu ka mid ahay xildhibaanada ugu daada yar ee deegaanka jooga runtii marka la eego waxaa la odhan jiray maalintaan halkan iska sharaxay waxaa laga guuri war caynaba ma adduun baad u doonanaysaa maxaad ka doonaysaa ha yeeshee igama ahayne waxay iga ahayd inaan shacabkayga wixii aan ku da'yarahay ee aan kari karo inaan ku kordhiyo bay iga ahayd igama ahayn inaan adduun dhaqdo oo aan adduun ka tabcado halkan anigu kolley shakhsiyan baan ka hadlo uma iman xildhibaanada kale inay la mid yihiin baan qabaa xildhibaan halkan adduun soo doontay inaanu jirin qodobka xerodhiigta haddaan ku horeeyo xerodhiigtii qorshaha waxaa noogu jira inaan magaalada ka saaro oo aanu meel runtii ku habboon oo nadaafadeeda la geyn karo taqalaala iyo toqoyanba ay ku dhici karto godada aan u qodno meel ku habboon aanu geyno waa qorshihii koobaad aan maalintaanu meesha nimi aanu gaadhnay uu ahaa kaana gacantaanu ku haydnaana waxaanu leenahay hala samro haddaa la ka dhigo waxaa la weydiiyey dhulka danta guud dhulkii guud ee dalka ama gobolka waxaa haysta dad shacaba gacanta ugu jira dadka qaarna ma haystaan meele ay degaan horta dadkeennu waynu ognahay oo ma sinna oo qofna waxbuu haystaa qofna wax yar buu haystaa qofna waxba ma haysto bulshadeenu waa saddexdaa dabaqadood waa bulsho wax haysata iyo bulsho dhexdhexaad iyo bulsho leefalka ugu hooseysa ku nool marka waxaan qabaa dhulkuna inuu martabadaa yahay oo mid wax haysta iyo mid yar haysta iyo midaan waxba haysan inay bulshadu u qaybsan tahay taana waxaa runtii ilaahay dhulkayna uguma coyidhin ee waxaa jira dhul badan oo daynoo bannaan oo aan laakiin ku habboonayn inaynu degno waxaanan qabaa in dee insha allah biidnillah kari magaaladeenu ay korayso oo daafa u kala kortay maanta ay kilomitr 1 kilomitr in ka badan ay magaaladeenu isu jirto ayaan qabaa inaynu insha allah biidnillah kari dhulka inoo bannaan ka faa'iidaysan doono isagoo wali qiimaha dhulkeenu aad u jaban yahay waxaan dhiirigelinayaa qof kastaaba inuu heli karo marka loo qaybiyo dhulkeena dadka ku nool loo eego in qof waliba dhulku habboon heli doono haddii alla ka dhigo haddaynu usii samiro magaaladeena inaanu dhisano oo runtii dee birceeda kor u qaadno waa waajib ina saaran hiliblaha qolada hilibluhu way cabatay waanu ognahay cabashadooda ma moogelin cabashadooda hilibluhu runtii waa lafdhabarta inay ka mid yihiin dhaqaalaha ee soo gala dowladda hoose cashuur bixiyaasha inay yihiin waanu ognahay ma dafirsanin duruuf iyagoo wax ku qala waanu u nimi taangiga ay sheegaysaa wuu jiro taangi la-aan biyo la-aan iyagoo wax ku qalaan u nimi waxaanu ku dadaalay inay biyo helaan oo biyaha iskaga maydhaan nadaafadooda ku ilaaliyaan inay helo suuliyadii nadaafadii waanu ka qaadnay oo waanu beeshii waanu u nadiifinay anigaa ku qoray hablo laba nadiifisa oo dowladda hoose shaqaalada ka mid ah ku qoray inay nadaafadooda kor u qaadaan sariibadda waxaan u xidhxidhay dad baan u xidhxidhay shiidayay sariibadda dusheeda dhagax ku tuuraya waan u xidhxidhay oo caruur lahaa ayaa ogeydeen oo muddaan waalidkii dhalee ku wada hadlaynay haddeer waxaan qabaa intii hore u saarnayd mooye wax dambe inaanay fuulin intaana waxaan ballan qaadayaa inaan inamoo diro oo ka soo rogo oo ay dusheedu nadaafad ahaato waxaa ii qorshaysad inaan rijiyeeyo oo aan isla marmariyo oo runtii sariibaddu ay noqoto sariibad runtii hoosteeda iyo dusheeduba bad qabta oo ka bad qabta kulli muxadasaad kasta oo dusha kaga dhaca inay ka bad qabto taana qorshaha igu jirtay qodobka saddexaad qodobada igu dambeeya waxaa runtii iyadana meesha ku jirtay in dood wadaag dowladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo isku duwan iyo shaqaalaheedu ay dood wadaag shacabka u qabtaan oo maysu duwe ilaa iyo shacabka qofka ugu hooseeya leefalka isagoo xil ahayn inay wada doodaan oo si sariixa loo wada doodo ardayda jaamacadu ka soo qayb gasho oo kuwa ka baxay ka soo qayb galaan annagu mar walba diyaar baanu nahay ninkii hulaabanay inuu wax qarsanayaa la moodaa annagu mar kasta waxaanu diyaar u nahay inaanu shacabkayga qancino inaanu isbarbar taagno
in wixii xagaya runtii annagoo mar walba aan ka tegayn tusaalahayaga iyo tudhaalahayaga iyo awooddeeda dowladda hoose aan ka tegay waxaanu diyaar u nahay inaanu qancino shacabkayaga diyaar baanu u nahay oo wixii aanu qabanaynana aanu taabsiino wixii aanu qaban kari weynana aanu dhanaahno qarashka iyo hantida iyadaan noo saamaxayn qodobka isagana intaasaan kaga tegayaa waxaa qodobka isaguna aan ii qoran wuxuu ahaa in runtii isagana la sameeyo waxa loo yaqaano sayladaas iyaduna waxay idinku ahayd wax idinku mudan oo runtii shacabku ay wada dareemayaan iyadana taana waynu u guntan doonaa haddii alla ka dhigo waxaan halkan idinkaga mahad celinayaa si mug iyo miisaan la idinkaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina inaan wada hadallo oo wada doodno oo wada tashanno oo wax isu tusaaleyno oo isu tudhaalaha u wada hadallaa dantayada weeye ma nihin qaar ay doodiinna iyo maagitaankiinu wax ka dhibayaan ma nihin waxaanu nahay dad u tababaran inaanu idiin shaqayno waxaanu nahay dad u tababaran in halkii hore wax joogeen aanu hore uga sii soconno waxaanu diyaar u nahay inaanan dantiina ka tanaasulin haddaanu ku waayeyno mansabka aanu maanta joognay ah xildhibaan aanu ama maayar ama maayar ku-xigeen aanu nahay ama xogaye haddaanu dantiina ku waayeyno xilkayaga waanu u dhigaynaa madaxa danta guud iyo danta caamkaaba waanu ka shaqayn doonaa intaana waxaanu wax ku noqonaynaa annagoo idinkeedii hela waxaan hadalkayga kaga baxayaa waan dheereeyey hay-adda sonsaf aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa labada ruux ee maanta oo dhan inoo samreeyey aniga lafteeda shaqooyin badan baa ii yaalay waa ogtiin maayarkuu maqan yahay aniga xogaya ah howlo badan baa noo yaalay haddana waanu samiray waxaan hadalka kaga baxayaa bahda saxaafaddu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin runtii waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose oo xildhibaankii iyo agaasimi bay nagala joogaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaanada xagga dambe ka yimi mustad iyo maxamedna iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan dhammaantiin idin leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu